madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo waraysi gaar ah u siiyay ku hadalay walyaabo in qabsoomitaan ee markii xilka madaxweynaha mas'uul qabadi deegaanada koonfur galbeed soo sheegay intii maamulkiisu ka shaqeeyay duruufaha adag tan uu samarahay heerkii lambaahana intii uu ka shaqeeyay maamul goboleed. Bismillahir Rahmanir Rahiim, alxamdulillahi rabbil aalamiin. Horta muddo 3 sano iyo bilow waaye insha Allah kulli waqtiga aniga waxaan isleenahay maamul cusub oo xaaladiisa wax uu dhaxlay aanan jirin oo bilow ah hadii loo fiiriyo wax badan qabsoomay wixii qabsoomay aniga ma tirin karo laakiin kulli cisha macallina cid walba Soomaaliya iyo gaar ahaan reer koonfur galbeed wixii la qabtay waa ogyihiin ninkii indhaha iska xiraaya ama si kale u hadlay wax kale duruuf oo xaaladda Ilaahay ogyahay lagu shaqeeyay in maamulkii xilligaas in odayaasha dhaqanka ay runtii ay dadaal badan ay u sameeyeen oo ay dhiseen iyo ergooyinkii oo markaas wax doortay kadib barlamaan oo runtii xaaladiisa Ilaahay ogyahay maamulkan waa maamulka kaliya Soomaaliya afarteeda qaybood iyo barkaba ay degan yihiin in marka maamulka inta lagu heshiiyo barlamaan heshiis lagu dhiso nafteeda ayaa wax weyn la qabtay muddo har sanadna uu qaadatay kadib maamulku muusan lahayn xafiisyo iyo guriyo iyo muusan lahayn wax badan horta la qabtay alxamdulillah ilaahay ugu mahadcelinayna dadaalkaas dadweynihiina la qabtay iyo barlamaanka duruuftaas ku shaqeeyay iyo ciidanka Soomaaliyeed militariga iyo booliiska iyo kuwa gaarka iyo amisom walaalaheena oo dadaal badan noo sameeyay. madaxweynaha ayaa soo hadalay si wadaamayba ku hadalay maamul sameeyo degmooyinka koonfur galbeed oo sheegay anti qaarka iyo la ka guuleysay inta dhammaan u rajayahay anti guulo lagu deera maxay ka gaartay dadaal badan ay ka sameeyeen hadda degmooyinka ayaga dadku ku nool yihiin lama soo weeraro ayaga shabaabka beegsada waliba iyadoo inaan wali u suurto gelin laakiin ay jidadka furaan waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socdana inay jidadka furaan mar haddii ay ku guuleysteen inay degmooyinkii oo dhan ay dadku ay ku noolaadaan gaar ahaan sida Baay Bakool gobolka Shabeellada Hoose inaan ciidamo ka tababarno sida Baay Bakool ayaan markii hore ku talagalkayga ahaa neemaysan suuragelin sababo jira awgood siyaasad iyo arrimo jira dartood laakiin hadda ayaan rajo weyn ka leenahay inaan ciidamo u tababarno 8 degmo oo gobolka Shabeellada Hoose waqtiyada soo socda bidinil kariim marka waxaan isleenahay haddii ayagana ciidamo loo tababaro sida Baay Bakool ay noqdaan oo degmooyinka in la joogo degmooyinku aan la soo weerarin iyadoo amisom iyo ciidamada militariga iyo booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa maamulka iskaashanayaan iyo shacabweynaha haddii loo helo marka dambe waxaa la heli doonaa in jidadkuna ay furmaan marka insha Allah waxaan ku rajo weynahay inay wax badan qabsameen wax badan ay dhimeeyeen kuwa badan ay qabsoomi doonaan. madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan yasaas oo kale baaqan dari bulshada koonfur galbeed intii isku dhinhan ku jeesadaan kooxo waqti joosi dhamaadaha ayaa al-shabaab sidii loo qaadan lahaa dhibaatada iyo ka hayaan shacabka Soomaaliyeed ee walban galabsano iyo ka dhibaateeyaan guud ahaan dalka. bulshada reer koonfur galbeed waxaan ugu baaqayaa in Ilaahay uu dhibaatadan hadda jirtan oo ka saaro ayagana isku niyad noqdaan si dhibaatada uga bixi lahaayeen kuwa dawladiidka oo dhibaatada ku hayana isku meel ugu soo istaagaan ayaguna isgarabsadaan si dhibaataan uga bixi lahaayeen maamulkoodana ay garab istaagaan wixii dhaliila uu leeyahay maamulku siyaalo badan oo loogu sheegi karaa jiro maamul la'aan waa la soo arkay muddooyin badan ayaa maamul inta la dhisay maamulkaasiga oo aan hana qaadin ayaan tilaabooyin aan loo baahnayn la qaaday waana la arkay wixii laga soo gaaray marka waxaan leenahay sidii maamulkooda ku hana qaadi lahaa maanta anaga joogno berina qof kale ay imaan kara maamulka ayaa anaga waxna taro maamulkana cid walba iska leeyahay marka qof walbana waqtigeeda ay joogaysaa marka inay maamulkoodana la shaqeeyaan nabad ka wada shaqeeyaan walaalnimadoodii iyo ahalnimadoodii iyo horumarkoodii Soomaaliya federaal ay qaadatay cid walba waxay u baahan tahay in meesheedii ay nabad inta ka dhigato oo nadbaysato ay dib u dhis ka samaysato ay hormariso ayaa loo baahan yahay marka ayagoo gacmaha haysta inay dadaalkaas muujiyaan ayaan ka codsanayaa meel kasta ay joogaan. hadalka madaxweynaha ayaa ka beegmay xilli ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamulka koonfur galbeed iyo diyaar garowga jaran sidii iyo maleeshiyada ka dhoomaaleysadahay deegaanada koonfur galbeed ku safeeyay lahaayeen Faysal Maxamed Isaaq warbaahinta koonfur galbeed